maxlu shaahidka marka xadiisku waa ku cad yahay yani waxa way tarjamada iyo isaga calaaqada ka dhaxaysa waa daahir waa iska muuqataayo in gacmaha la dhaqayo wadaadada qaar baa waxay dhihi jireen gacmaha haddii inta nijaaso lagu daahiriyo markaa kadib uu ruuxu gacmihiisa gooni u dhaqo meeshii daahir inaysan ahayn bay daliil u tahay oo dib haddana waa inuu u dhaqo maqaana kutubta furuucda waxdaasoo kaleetaa ku oli jirta furuucda fiqiga sababtu waxay leeyihiin maxaa laga dhaqi gacantan waxa laga dhaqayo soo meeshii unkuma olin haddana meeshiina waa in la dhaqay leeyahay wax jira maa xadiiska nebiga ku cad sida ku cad salawatullahi wasalaamu calayh dakarkii markii uu soo dhaqay gacantana uu gooni u dhaqay dhaqitaan dakarka looguma laabanin saas macna marka uun taqriiban waa iska ijtihaadaad wadaadda u marmarinaya baabun hal yudkhilu ma gelinaya aljunubu ninkii janaabada qabay yadahu gacantiisa ma gelinaya fil inaa'i weelka dhexdiisa qabla an yaksilahaa intuusan dhaqin gacantii idaa lam yakun hadduusan ahaanin weeye calaa yadihi gacantiisa dusheeda qadarun wax qurun ah oo nijaasi wixii la mid ah hayruljanaabati qadarkaas oo hayruljanaabati janaabo aan ahayn ninka junubka ah gacantiisa weelkii ma dhex gelin karaa intuusan dhaqin su-aashaasi goorma imaan karta waa haddaan gacantiisa wax nijaasoa ku oolin oon janaabada ahayn hadday nijaaso ku taallo la hubo oo aan janaabada ahayn oo nijaaso kale ay leedahay dee taa in la dhaqayo ma isweydiin bay leedahay maya laakiin markay su-aashu imaanayso waxa weeye gacantii waa nadiif laakiin ninku ruuxu waa janaabo qabaa gacantuna janaabadii jidhku qabay ayay iyaduna qabtaa wax nijaasoo kaleo laakiin ku taalla ma jirto gacanta noocaasa haddii isagoo uusan dhaqin biyihii uu ku qabaysanayo dhex geliyo biyihii ma nijaasoodin ilan hala dhaqaa laysku ogaa soo maa yacni murtida hadalku waxa weeyaan iyo gebagabadiisu gacanta hala dhaqada laleeyahay weelka intaan la gelinin ma nijaasaa laga dhaqayaa mise waa iska sunniya istixbaab wey halkaasuu doonaya macnaha inuu kuu caddayo macnaha ayib wa adkhala wuu geliyey buu ihi wuu geliyey ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar iyo walbaraa ibnu caazib waa laba saxaabi yadahu gacantooda waxay geliyeen fi dahuuri biyihii qabaysiga loo diyaariyey walam yaksilhaa mana uusan dhaqin midna gacantiisa uma kadib buu tawada'a weysiisay walam yara muusan arag buu ihi ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar muusan ra'yeynin wabnu cabaas iyo cabdullahi ibnu cabaas mayna ra'yeynin mayna arag wax ba'san wax dhibaataa maynan ka arag bimaa shayga yantadixu ka dulduulaya min gusli ljanaabati janaabada qabaysigeeda biyaha ka fanfaninahaya ka dulduulaya wax dhiba maysan u arag cabdullahi ibnu cumar iyo cabdullahi ibnu cabaas oo calaaqaday la leedahay maxay tahay baabkeena waxay la leedahay ujeeddada horta yani uu wataa waxay tahay sida yani muhallib uu tilmaamayo bukhaari wuxuu doonayaa inuu tarjamadan ku tilmaamo ruuxa junubka ah gacantiisu hadday nadiif tahay inay u bannaan tahay inuu biyaha dhex geliyo intuusan dhaqin maxaa yeelay gacantiisu janaabada daraaddeed nijaas lama aha yacni janaabadu waa shay xukmi ah oo jidhka gaadha laakiin nijaaso uu jidhkii nijaasoobayo laga dhaqayo ma aha saas way macnaha jidhkii baa nijaasoobahayo oo intuuna ruuxu qabaysanin wax alla wuxuu taabtaba ha laga dhaqo oo hadduu weel gacanta geliyo ha la dhaqo oo hadduu biyo gacanta geliyo ha la daadiyo ma aha yacni ruuxii janaabada qabay daahir weeyaane nijaaso maaha gacantiisu wax nijaasaa ma leh sidaa daraaddeed hadduu iska geliyo biyihii ma nijaasoobayaan ha la dhaqa maxaa loo yidhi ha la dhaqo waxaa loo yidhi sababku ma aha arrin u noqonaysa janaabada waa istixbaab oo markuu weysaysanayaba isagoon janaabada qabin soo dhaq lama dhihin intaada biyaha gelin gacanta tii oo kale un bay la mid tahay ee wax janaabada u noqonaya ruuxuu nijaasoobay ma aha saasuu wataa bukhaari oo inuu ku yidhahda raba macna tan dambe marka taa hore garanaya cabdullahi ibnu cumar iyo baraa ibnu caazib wuu ku cad yahay laakiin tan dambe muxuu daliishanaya biyaha duulduulaya wax dhibaataa mayna u arki jirin sababtu waxa weeyaan uu saa u leeyahay janaabadu waa shay xukmiyaa nidhi hadday biyaha saamayn ku yeelan lahayd biyaha jidhka ruuxa janaabada qabee qabaysanaya ka duulduulaya weelka markay ku dhacaan weelkaa lamana isticmaaleen biyaha ku jirana lama isticmaaleen ilaa la dhaqo leanna meel nijaasa biyihii kasoo go-een sooma kasoo faniineen maadaama weelkiina aan la dhaqaynin biyihii uu reebayna lagu qabaysanayo o la isticmaalayo biyihii ka duulduulayay jidhkiisuna weelkii ay galeen jidhkiisu da waa daahir wey marka nijaaso ma ah
gacantii baa kamid marka wax daahirka la gelin karo weelka way macna saasuu wataayo yani afarkan dambe ujeedadaas kaliya macna طيب قال إمام كحول حدثنا عبد الله بن مسلمة بن القعنبي القعنبي قال حول أخبرنا أفلح بن حميد الأنصاري المدني عن قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت وحيتري كنت وحانا أغتسل من قبيسة أنا أنيقا إيا والنبي صلى الله عليه وسلم إيا النبي من إناء ويل حجي سان كقبيسين واحد أو مدأ هل ويل والجنابي كقبيسين المرء تختلف حال خلافة أيدينا قعمها نو أي دوام مريان فيه ويل كدحديث حال أي ويلش يعني قعمها نو أي ويل كيسود دوام مريان يعني الرواية كلا يا يغترف تارة قبلي وتارة أغترف قبله مرنا إسقى يظهر درسا مرنا أنا كهر درسا مرك يظهر درسا يا وحديه بيتري دعني إذا هيجبوا به معنا مركان أنو كهر درسنا وحديه دعي لي لا إذا هيجبوا به صافي معنا فيها دوش ودي بالله الله وحلاقة قادن الروح يسوي قبيسنا يو قاون إنه هل كرو waxyaala laga faa'iideysan ka mid iida marka la isleeyahay waa mar macnaha hawshii qabayska lagu dhex jiro way macnaha sidaas weeyaan arrintan soo tilmaanay weeyaano yaa iyadana ku tusiyo ninka iyo xaaskiisa hal weel inay ka wada qabaysan karaan macnaha saas weeyaan bayib waxa laga qaadanaya bayib tarjumada xageeba calaaqo kale leeyahay marka junubku weelka biyaha ma gelin karaa intuu san dhaqin bay tarjumadu xadiidkana weel gacanta la gelinayo ma sheegin xageeba marka calaaqo kale leeyahay waxa laga calaaqo kale leeyahay Aisha iyo Nabiga sallallahu alayhi wasallam hal weel baa dhexdooda yaalo ay gacmihii ka dardarsanayaan gacmihiina inay dhaqeen lama sheegin marka inay banaan tahay soo kuma tusayso bay hadii la yiraahdo xataa way dhaqeen kaba soo qaad way dhaqeen hadii la yiraahdo xataa ruux markuu gacmihiisa dhaqo gacmaha bas dhaqo jirkiisa janaabadii ma ka kor noqotay mise jirkiisa wali janaabadii waa leeyahay markaad gacmihii dhaqdo xataa jirkii oo janaabadii wali ku jirtay gacmihii wali ka mid yihiin dhaqitaankan gacmaha aad dhaqdayna janaabadii ma kor yeelin haddana isla markaa waxaa la isla ogolyahay markaad gacmaha dhaqdo inaad biyihii dhex gelin karto oo gacmihii sama janaabo qabaan markaa ay biyaha ku dhex jiraan xataa abaad soo dhaqdide waa janaabo qabaan ayagoo janaabo qaba hadday nijaasayn waayeen hadde intaan weli biyo alla dhaqinna janaabay qabaan wax kuma nijaaseeyaan way macna marka waxba ma yeelayaan saas wata macna xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa xadiidkaynu soo marnay oo ruuxa junubka ah biyaha intuu muquurto yuusan dhexdooda ku qabaysanin ah nahyigaasi litanziih weeyaane ma aha litaxriim ma aha taasuu macna xaafid ibn xajar leeyahay sababku waxa weeyaan haddii jidhkii ruuxii janaabo qabay qaarkii biyihii la dhex gelin karo isagoo dhan inuu biyaha dhex muquurto soo lamid maaha oo maxaa loo nahiyey marka waa laga fiican yahay oo biyihii baa mustaqdar noqonaya macnaha يعني روح جنابه قبا ku qabaysidii marka wax laga yaqiiqsado bay noqonay waa intaas tahriim ma aha bulay macna oo tahriimka waxa ka sarfinaya gacantii oo iyadoo janaabo qabta biyaha la dhex gelin karo macna taas ka sarfinaysa macna dayib قال امام كوحي حدثنا مسدد ابن مصرحد قال وحوري حدثنا وحن نور المسدد ابن مصرحد قال وحوري حدثنا حماد بن زيد حماد بن سلمة يا حماد بن زيد واسكت ضرب قوي لكن بخاري كما وري حماد بن سلمة حماد بن زيد مكوري معنا حماد بن زيد بن درهم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت وحيتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كوحها إذا اغتسل هدوء قبيس من الجنابة جناب قبيسني غسل مدق أيها يده كعنتي انتو سنقبيسنين weelkana gacanta gelin boorta gacanta dhaqi jiray day kan muxuu ku tusi marka bukhari ujeedadu waxa weey ahadiista sheegtay inuu nabigu gacmaha dhaqi jiray waxa lagu xambaarayaa markii la hubo gacantu inay nijaaso wadato ama qurun ku yaalo markaas lagu xambaarayaa ahadiista amraysa in gacanta la dhaqo intaan weelka la gelin ahadiista ku tusaysa in weelka gacanta la iska gelin karo isagoo la dhaqina waxa lagu xambaarayaa marka la hubo gacantu inaysan wax nijaaso wadan saas marka ahadiista ku jamcinaya wuxuu leeyahay xafid ibn xajar waxa kala suurtagal ah ahadiista in lagu jamciyo in la yiraahdo dhaqitaanku waa sunnanimo ay ku tusi ka tagitaanka dhaqitaanka labada gacmood la dhaqo gelinta ka horna ka tagitaanka inay iska banaan tahay ku tusi hadii laga tagayna way banaan tahay
sameeye haddii la yidhina sunnanimo iyo istixbaab bay kutusiye waajibnimadii meesha ka saaraysa macnaha saana waa lagu jamcin karaa axaadiis adiga warkiiyo murtidiisu waxa weeye waa in yani gacmaha la dhaqo weelka intaan la gelinin baa sunno ah waajibse ma aha waajibsa oo meelaha laga tegey baa kutusaysa inaysan waajib ahayn macnaha ayib qaala imaamku wuxuu uhi xadaana abulwaliid aطayaalisi hishaam ibn cabdilmalik qaala wuxuu uhi xadaana shucbatu ibn اlxajaaj can abi bakr ibni xafsin waan soo marnay abu bakr ibni xafsin ibni cumar ibnu sacd ibn abi waqaas wey can curwat bni zubayr can caaishata radi allahu tacala canhuma qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa aktasilu mid qabaysata ana aniga iyo wanabiyu sal lay slam min inaa'in waaxidin hal weel xaggiisaan ka qabaysan jirnay min janaabatin janaabo darteed baana u qabaysan jirnay janaabo darteed baan u qabaysan hal weel baana ka qabaysan jirnay xadiidkeedii hore buu la mid yahay macna wa can cabdiraxmaan ibni qaasim waxaa laga warinaya can abihi aabihi wuxuu ka warinaya can caaishata caaisha wuxuu ka warini milahu xadiidkaas oo kale wa can cabdiraxmaan ibni qaasimkaasi waxay ku cadfan tahay can abi bakr ibni xafsin sanadkii horaa xadiiska lagu warinayaaye mucallaq maaha sanadkani mucallaq ma aha oo macnaheedu waxa weeye ninka la yidhahdo shucbe ayaa xadiidka laba sanad ku wariyey sanad wuxuu leeyahy waxa weeyaan abu bakr ibni xafsin can curwata can caaisha wey sanadna waxa weeyaan waa cabdiraxmaan ibni alqaasim can abiihi qaasim ibni moxamed ibni abi bakrin can caaishata marka caaishuu isugu imaanaya xagga korena caaishu isugu imaan xagga hoosena shucbuu isugu imaanaya saas maana shucbaa marka yani shuyuukhdiisu kala duwan yihiin waa un intaasu meesha u keenay ayb qaala imaamku wuxu uhi xadaana abulwaliid aطayaalisi hishaam ibn cabdilmalik qala wuxu uhi xadaana shucbatu ibn اlxajaaj can cabdillahi bni jabrin qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay anas bna malikin yaquul isagoo leh kaana nabiyu sal lay sl nebigu wuxuu ahaa iyo walmar'atu haweeney oo min nisaa'i haweenkiisa ka mid ihi yakhtasilaani kuwa qabaystay ahaayeen min inaa'in weel xaggii waaxidin oo mid ah hal weel bay ka wada qabaysan jireen zaada muslim wuxuu kordhiyey wa wahbun iyo wahb ibnu jariir wey wahb ibnu jariir muslimkaasi muslim ibnu ibraahim alfarahidi wey muslim ibnu ibraahim alazdi alfarahidi wa wahbun wahbnakaasina wahb ibnu jariir ibnu xaazim wey can shucbata iyagoo ka warinaya waxay ziyaadiyeen min aljanaabati bay ziyaadiyeen yacni xadiiskaasay wariyeen laftoodu laakiin waxay ku dareen yaktasilaani min inaa'in waaxidin min aljanaabati laakiin ninka la yidhaha abulwaliid isagu kuma darin abulwaliid isaga lafdigaasi muusan warinin raggaa kalea laakiin wariyo shucbay ka wada warinayaan kulligood macna baabu tafriiqi lgusli qabayskii kala geyntiisa qabayskii oo la kala geeyey iyo walwuduu'i weysadii macnaha waxa weye in yacni weysada qabayska aadan xidhiidhinine qayb intaad jidhka hadda dhaqdo waxoogaa markay muddo ka soo wareegtana qaybtii ku laaban inaad dhaqdo ama xubnahaaga qaar ka mida intaad weysatood wejiga iyo dhaqdo masalan iyo macnaha waxa weye gacmaha iyadoo lugihii ku laaban yihiin inaad iska danaysato cabaar markaad meelaha iska soo joogjoogto haddana lugaha dhaqdo saasuu ka wadaa macna tafriiqu lgusli walwuduu saasuu ka wadaa in la kala geeyo waktiyo kala gedisan yani la sameeyo waktiyo kala fog ma bannaan tahay buu macnaha wataa miyay bannaantah wuxuu yidhi wayudkaru waxaa laga sheegaa can ibni cumar cabdullahi ibni cumar waxaa laga sheegaa oo laga wariyaa annahu isagu hasala inuu dhaqay qadamayhi labadiisa lugood inuu dhaqay bacdamaa jafa markii uu ingegay kadib wuduu'uhu weysadiisu markay ingegtay wuduu'uhu dheh weysadiisii markay ingegtayoo waduu'uhu biyuhu ku weyse qaatay biyuhu ku weyse qaatee jidhkiisa saarnaa markay ingegeen kadib ayuu lugaha dhaqay saas macnaha yani uu iska soo gaabiye gaabintaa daraaddeed buu hadda siiqatu tamriid ugu wariyey laakiin xadiidka waxaa wariyey imaamu shaafici baa muwada wuxuu ku wariyey umka isagoo dheer waana sanad saxiix oo daciif maaha yudkaru ilan siiqadaa waxaa loo isticmaali jiray siiqatu tamriid wey sooma laakiin halkan ma aha marar badan bukhaari wuxuu sameeyaa hadduu xadiidka macnaha ku wariyo lafdigiisi uusan keenin yuu siiqatu tamriidka yani waxa weye isticmaalaa walow xadiidku wayuusan daciif ahanin macnaha marka afarkan cabdullahi ibni cumar laga warinaya waa saxiix oo imaamu shaafici baa umka usoo saaray wuxuuna ahaa cabdullaahi ibni cumar intuu suuqa isagoo jooga weyse qaatay buu lugihii isagoo u laaban yihin buu soo tegey suu usoo socday buu masaajidka yimid masaajidka markuu yimid buu lugihii dhaqay marka suuqa iyo macnaha waxa weeyaan masaajidka wakti dheer baa udhexeeya oo luguhu ku ingegi karaan bukhaari marka macnuhu ku wariyeyo lugihiisii buu dhaqay markay weysadiisii ingegtay kadib in tafriiq lagu samayn karaa marka yani asarka ka muuqato u daliishanaya macnaha cabdullahi ibni cumar ra'yigiisa waa qowl imaam shaafici fi ljadiid imaam shaafici baa qaba fi ljadiid waxaa kaloo qaba saciid ibn musayab cataa
jamaaca min alculamaa taxaawi baa ka mid a xanafiyada raggooda yani muxadisiinta ka mid a wuxuu u daliishanayaa imaamu shaafici oo uu leeyahay allah subxaana wa tacaala wuxuu uun amray xubnaha dhaqitaankooda laakiin qaabkaa u dhaqa oo dhaqitaanka xidhiidhiya iyo ha kala goynina iyo kala gooya midna ilahay ma odhan mar hadduusan ilaahay uusan waxba ka sheegin oo qur-aanki iyo sunnadii midna waxba ka sheegin hadda waxa weeyaan intuba bannaan wey macna saasuu imaamu shaafici u daliishanaya intuba way bannaan tahay culimadii salafkana waabaka waa laga soo guurinaya macna qaala imaamku wuxuu yihi xadaثana moxamed ibnu maxbuub abu cabdillahi albasri qala wuxuu yihi xadaثana cabdulwaaxid ibnu ziyaad albasri qala wuxuu yihi xadaثana alacmashu sulayman ibn mahraan can saalib ibni abi ljacd raafic alashjaci can kurayb ibn abi muslim mawla bni cabaas can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yihi qaalat maymuunatu maymuuna waxay tihi nabiga xaaskiisii sal lay slam wadactu waan dejiyey lirasuli lah sl lay sl nabigu waxaan u dhigay maaan biyo biyahaasoo yakhtasilu bihi uu ku qabaysanayo faafraqa markaasuu shubay nebigu calaa yadayhi labadiisa gacmood dushoodu ku shubay biyihii fagasalahumaa labadii gacmood buu dhaqay maratayni laba goor aw alaaan 3 goor yaa shakiyey baynu nidhi acmash ayb uma kadib waa afraqa shubay biyamiinihi gacantiisa midig isagoo isticmaalayo calaa shimaalihi bidixdiisa dusheeda ku shubay biyihii fagasala wuxuu dhaqay madaakiirahu dakarkiisa ayuu dhaqay uma kadib buu dalaka jijibiyey yadahu gacantiisu bilardi dhulka ku jijibiyey oo marmariyey uma madmada wuu luqluqda wastanshaqa wuu sa daarsaday uma gasala wuxuu dhaqay wajhahu wejigiisa iyo yadayhi labadiisa gacmood wagasala wuxuu dhaqay ra'sahu madaxiisana 3 goor buu dhaqay uma afraqa wuu shubay calaa jasadihi jidhkiisuu biyihii ku shubay uma tanaxa wuu durkay min maqaamihi meeshii uu taagnaa buu ka durkay fagasala wuxuu dhaqay qadamayhi labadiisa lugood buu dhaqay aaway xagee buu ka daliishanaya xagee buu ka daliishanayaa in weysada la kala geyn karo ama qabayska la kala geyn karo lugaha la dibdhigay saas way macnaha markii hore wuu weysaystay qabays buu galay markuu qabayskiisii dhammaystay kadib ayaa lugihii oo u laabnaabu dib ka dhaqay nebigu salawatullahi waslamu caleyh marka weysadii in la kala geyn karo qabayskiina la kala geyn karo buu daliil u tahay weysada waaba iska muuqataa laakiin qabayskana uga qiyaas qaadanaya qiyaasan cala alwuduu wey macana qiyaasan cala alwuduu culimada qaarka qaba waa masale muran badan ku jira wey fuqahadu isku khilaafsan yihiin ayib marka way ka jawaabayaan qolyaha qaba macnaha maarata inaysan banaanayn oo in yani muwaalaat alwuduu waalgusli qabayska in la xidhiiriyo iyo weysada qolyaha waajibinaya way ka jawaabayaan macnaha ayib baabu man cid ayuu baab yahay afraqa shubay biyamiinihi midigtiisa shubay isagoo ku shubay midigtiisa isagoo isticmaalaya calaa shimaali bidixiisa dusheeda ku shubay fi lgusli qabayska dhexdiisa yacni biyaha marka la shubayo ma midigtaa la isticmaalayayo biyaha soo qaadaysa mise bidixdaa soo qaadaysa midigtaa soo qaadaysa wy maana bidixduna hawshii bay qabanaysaa hawshaasi hadday tahay hawl ay inay wada qabtaan labada gacmood loo baahan yahay mooye haddii miduun qabanayso bidixdaa qaban midigtuna biyihii bay soo qaadi wey macna saas weyan qaala imaamku wuxu uhi xadaثana muusa bnu ismaaciil atabudaki qala wuxu uhi xadaثana abu cawaana alwadax bn cabdillahi alyashkuri qala wuxu uhi xadaثana alacmashu can saalib bn abi ljacd can kurayb mawla bni cabaas can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can maymuuna binti alxaaris radi allahu canha qaalat waxay tihi wadactu waan dhigay lirasuli lah sal ly slm rasuulka waxaan u dhigay guslan biyo uu ku qabaysto wasatartuhu waanan asturay bihawbin baa soo artay yani maraan ku asturay nabigoo qabaysanaya salawatullahi waslamu caleyh bay mare ku haysaa manaa maray u haysaayo maray ku asturaysaa macna dabcan yani dhankaasaa laga yaaba derbi inuu ka jiro laakiin dhinac uu ka banaanaa ama meel irid ahayd bay mare ku haysaa macnaa maradaasi ku asturaysaa wasatartuhu nebigu waan asturo maraan ku qariyey fasaba wuu shubay calaa yadihi gacantiisa dusheedu ku shubay fagasalaha wuu dhaqay gacantii maratan 2 goor aw maratayni qaala sulaymaan wuxuu yidhi laa adrii ma ogi oo ma garanayo adakuu sheegay saalim ahaalisata marka saddexaad am laa mise muuse sheegay sulaymaankaasi waa kuma waa acmash saas man acmash baa wuxuu leeyahay ma garanayo saalim oo sheekhaygoon xadiidka ka warinayo mar saddexaad inuu sheegay gacmaha dhaqitaankooda mise inuu 2 ku gaabsaday anaa shakisan wey macnaha uma afraqa wuu shubay biyamiinihi midigtiisa dusheedu ku shub midigtiisu isagoo isticmaalayuu shubay calaa shimaalihi bidixiisa dusheedu fagasala wuxuu dhaqay farjahu farjigiisu dhaqay uma dalaka wuu marmariyey yadahu gacantiisu bilardi dhulka marmariyey aw bilxaa'iti ama derbigiiba marmariyey uma tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday wagasala wuu dhaqay wajhahu wejigiisa iyo yadayhi labadiisa gacmood wagasala wuu dhaqay ra'sahu madaxiisa uma kadib wuu saba shubay calaa jasadihi
jirkiisa dushiisu biyihii ku shubay uma tanaxa wuu durkay oo meeshuu taagnaa buu ka durkay fakasala wuu dhaqay qadamayhi labadiisa lugood fanaawaltuhu waan siiyey oo waan u fidiyey khirqatan karintii biyaha layska marmarin lahaa wey yani waxa wey mindiilka uuna soo yidhi markii dhawey faqaala wuxuu yidhi nebigu biyadihi gacantiisu haakadaa sidaa yidhi walam yuridha mana uusan doonin saas maana yani gacanta markaad ku tilmaamayso shayga inaad diidan tahay see la dhaha sosma yani waxa weye gacmantu raacda macnaa bas waa mar rabo wey macnaa gacantu saas yidhi waa meeshii iyadana qawlka aan nidhi ficilka yani qowl laga idlaaqa macnaha saas weya faqaala biyadii gacantiisuu ku sameeye oo yidhi haakadaa sidaasuu yidhi walam yuridha mana uusan doonin nebigu sal lay waslam yani sidii isagoo diidan ayuu gacanta ku tilmaamay diidduu gacantiisa ku tilmaamay nebigu sal lay waslam saas macna marka maxalushaahidku xagee wey maxalushaahidku wey uma afraqa biyamiinihi cala shimaalihi midigtii baa biyihii soo qaadaysa bidixdiina dakarkii bay dhaqaysaa ayib markay bidixdu hawsha hayso garanayo kolley midigtaa soo qaadi mararka kale xagee buu ka daliishanaya xagee buu ka helay wuxuu ka helay qiyaasan calaa tilka alxaala xaaladaas uga qiyaas qaadanaya maadaama dakarkii markii la dhaqayay ay midigtu biyaha soo qaadaysid xaaladaha kaleetana waa la mido midigtan baa biyaha soo qaadaysa macna iyadoon baa biyaha soo qaadaysa wuxuu leeyahay khataabi taasi waxa weeyaan hadduu hal weel biyaha ka soo dardarsanayo weelka uu ka weysaysanayo ama ka qabaysanayo hadduu biyaha gacanta ka soo darayo midda soo daraysa midigtay noqon midda hawsha qabanaysana bidixday noqon haddiise uu yahay weelku sidii kildhi oo kale ama buraashad oo kale lagama dardarsanayo inta la forriyaa la shubaya markaas wuxuu leeyahay bidixdaa weelka la marinaya gacanta bidixi baa qabanaysa midigtana waa lagu shubi saas macna cagsi way macna yani weel markan xadiisku tilmaamayo waa weel ballaadhan oo gacanta lasoo darayo laakiin haddaynan ahaynoo weelku af dhuuban yaho gacantu ayna gelaynin gacanta bidix baa weelka lagu qabanayaa midigtana biyihii baa lagu shubaya saasuu khadaabi leeyahy ma aqaano meeluu ka helay macna ayb baabu idaa jaamaca haddii uu jimaaco ayuu baab u yahay ninku xaaskiisa uma kadibna caada uu ku noqdo xukumkiisu muxuu yahay waman cidna baab buu u yahay daara wareegay calaa nisaa'i haweenkiisa dushooda ku wareegay fii guslin qabays dhexdii waaxidin oo mid a macnaha laba tarjamo weyo midahooda waxa weeyaan nin reerkiisa intuu u galmooday haddana doonayo inuu mar labaad ku noqdo maxaa laga rabaa ma qabays baa laga rabaa ma weysaa laga rabaa ma midna isagoon qabanin buu hawshii mar labaad qabsan karaa waxaa kaloo iyadana macnaha waxa baab uu yahay nin haween badan qaba haweenkiisa isu wada maray isagoon qabays u dhexaysinin saas macna hal mar buu ka wada qabaystay kulligoodna hal mar buu isu wada maray taas ayaduna ma bannaan tahay mise ma bannaana saas wata macna qaala imaamku wuxuu yihi xadaanaa muxamed ibnu bashaar bundaar qala wuxuu yihi xadaana bnu abi cadiyin maxamed ibnu ibraahim baa la dhaha wa yaxya bnu saciid waa qaaankii wey yaxya bnu saciidin alqaaan can shucbata kilaahumaa halkaas macnaha waa la gooyaa khaan laakiin waa la akriyaa markay laba yihiin kilaahumaa labadooduba waxay ka warinayaan can shucbata maxamed ibnu ibraahim min abi cadiyin iyo yaxya ibnu saciid baa labadooduba shucbo ka warinayaan can shucbatay ka warinayaan can ibraahim ibni muxamed ibni muntashir buu isaguna ka warinaya can abihi aabihi buu ka warinaya moxamed ibni muntashir abu muxamed wuxuu yidhi dakartuhu waxaan u sheegay hadalkaa licaaishata caaishaan u sheegay dakartuhu damiir wuxuu u noqonayaa hadal inoo imaan doono oo iska soo gaabiyey waa hadal cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar maa uxibu an asbaxa muxriman andakhu dhiiban ma jecli inaan waa beriisto anoo xarman oo haddana uu iga soo gufaacayo cadar iyo waxyaalo udgoon ma jecli buuri macnaha wuxuu ka wadaa ila ruuxu markuu xarmado ama xaj ama cumro xarmashada kadib dhiib looma ogola soo maaha xataa haddii uu intuusan xarmanin intuu dhiib iyo waxyaalo udgoon ismariyo markaa kadib uu ka qabaysto oo dhiibkii jidhkiisa ku soo hadho markaa kadib ma jecli buu leeyahy maxaa yeele waan xarmanahay anoo xarmansee buu yani udeyg iyo dhiib iyo cadar iiga soo udki karaa hadalkaasoo cabdullaahi bni cumar uu leeyahay baa caaisha loo sheegay hadalkaasaa cabdullahi bni cumar uu leeyahay wuxuu yidhi marka ninkani yani maxamed ibn muntashir baa wuxuu leeyahay dakartuhu hadalkaa waxaan u sheegay licaaishata caaishaan u sheegay cabdullahi bni cumar baa saali baa irbuy faqaalat waxay tidhi caaisha yarxamu allahu allaha u naxariisto abaa cabdiraxmaan waa kunyadii
cabdullahi bni cumar wey abu cabdiraxmaan allaha u naxariisto yani waa ismoodsiye wey kuntu waxaan ahaa bay tihi haddaan caaisho ahay utayibu mid udgoonaysa rasuulallahi sal lay waslam oo dhiibka u marisa mid dhiib u marisa macnaha cadar rasuulalahi sal lay slam baan dhiib fayaduufu markaasuu ku wareegi jiray calaa nisaa'i haweenkiisu ku wareegi jiray kulligu oo isu wada mari jiray uma kadib uu yusbixu waa bariisan jiray muxriman isagoo xarman oo yandakhu yani gufaacaya dhiib xaggiisa ka gufaacaya yani ka burqanaya dhiib oo dhiib kasoo udgoya macnaha waxay tihi waa ismoodsiiye arrinta anaa ugu xogagaalsan bay tii nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh intaan dhiib u mariyo oo cadar u marmariyo ayuu markaa kadib xaasaskiisa isu soo mari jiray markaasuu waa bariisan jiray isagoo xarman oo hadda udgaya saas macna marka hadduu haweenkiisa isu soo maray soo inuu qabaystay ma ah haweenka markuu isu maray kadib waa inuu qabaysto wey marka markuu qabaystay kadib buu dhiibkii weli kusii yaallaa wey macna dhiibkii kusii yaallaa marka waxay radinaysaa cabdullaahi bni cumar oo waxay leedahay dhiibka waxaa la diiday un in laysmariyo markii la xarmado kadib laakiin intaadan xarmanin ka hor inaad dhiibka ismariso kaad ismarisayna markaad xarmado kadib uu kugu sii ooli karo haddanigaa la sameeyeyba cabdullahi bni cumar muxuu sheegi bayna saas wey macna waxay ka mid tahay min istidraakaati caaisha cala asaxaaba kitaab baa jira macnaha laga qorayo istidraakaatu caaisha cala asaxaaba la yidhahda caaisha waxyaalahay saxaabada kaga daba tagtay oo qaar badan ay ku radiyey saas macna kitaab dhan baa laga aliftay rag badan oo saxaabada kamid ka daba tagto tir wuu gafay wuu khaldamay saa arrintu ma aha laanna cilmi badan oo inaan ogeyn bay macnaha ogeyn caaisha radiallahu taala canha maxaa yeele khaasatan arrintan ku saabsan nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh iyo yani gurigiisii iyo dhiibkiisii iyo xaasaskiisii iyo haddama cabdullahi bin cumar baa macnaha waxa weye waxayna caaisha ka ogaan kara maya saas macna maxal shaahidku muxuu yahay marka maxalu shaahidku waxa weeyaan uu kitaabka meeshan hadda u daliishanayo ninku inuu reerkiisa xaasaskiisa faraha badan kulli uu isu wada mari karo isagoon ka qabaysanin oo dhexdooda qabaysanin laanna nebigu sal lay slam markay cadarka u marisay xaasaskiisii buu wada maray wax qabaysana lama sheegin saas macna marka inaysan waajib ahayn in yani dhexda la qabaysto ayaa laga qaaday ayb wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar waxay culimada isla ogol yihiin oo ijmaaca in uusan qabayska loo dhexaysiiyo haweenka una waajib ahayn ama haweenaydaadii hore ood ku noqonaysa hal mid baad qabtaa iyadii baad dib ugu noqonaysaa ama meehe kuwo badan baad qabtaa isu maraysaa inaad u kala qabaysato inaysan waajib ahayn waa laysla ogolyahay horta waa ijmaac ayb laakiin waa sunno inaad u kala qabaysato waa sida fiican oo waxaa kutusaya xadiidkii aburaafic uu wariyey nebigu sal lay wasalam habeen buu maalin wuxuu isu maray xaasaskiisa mid kasta markuu macnaha hawsha ka soo dhammaystana wuu qabaysanayey tanuu macnaha u tegayaa wuu qabaysan tii ka qabaysan mar buu isu wada maray oo saa ku maray nebigu salawatullahi waslamu calayh markaasaa waxaa idhi buu yidhi rasuul allow alaa tajcaluhu guslan waaxidan hal qabays haddaad ka dhigto sooma fiicnaateen intaad hal mar wada marto qabayska mid inaad ka dhigato sooma fiicnaateen baan ku idhi aburaafic haddaan ah markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam hada azkaa wa atyabu wa athar sidana nadaafadda iyo dahaarada ku fiican buu nebigu sal middana dahaaro badan wey macna middana dahaaro badan marka taasaa laga qaadan inay wanaagsan tahay oy sunno tahay in qabays loo dhexaysiiyo waajibse ma aha oo xadiiskaa kala kutusay inaysan waajib ahayn ayb waysadu iyadoo sunno miya iyaduna waysaduna waa sunno inaad udhexaysiiso macnaha haweeneyda markaad ku laabanayso ama haweenkaaga aad isu marayso inaad weyse udhexaysiiso iyaduna waa sunno oo xadiis nabiga ku sugantahay salawatullah xadiidka hore horta abu daawud iyo nisaa-i baa wariy waa xadiis saxiix kan dambe oo weysadana waxaa kutusaya nebigu reerkiisa wuxuu nebigu sal lay slam hadduu midkiin xaaskiisa u tegayo oo uu damc u tegey oo uu damco inuu ku noqdo falyatawada' baynahumaa wuduu'an weysaha udhexaysiya buu nebigu sal lay waslam sababtu waxa weeyaan fainahu anshatu lilcawd waay noqoshada nashaad iyo firfircooni bay weysadu ku gelinaysaa macnaha jidhkiiyo waxoogaa macnaha waxa weye kala furfurmay biyahan la marinayaaye xooggiisii iyo quwadiisii bay usoo celinaysa marka xikmad weyn baa ku jirta macnaha weysada loo dhexaysiinay ayb weysadaasi iyada lafteeda waajib ma aha sida raajixa waajib ma aha ayb qaala imaamku wuxuu ihi xadaanaa muxamed ibnu bashaar bundar qaala wuxuu ihi xadaanaa mucaad ibnu hishaam qaala wuxuu ihi xadaanaa abi waa hishaam bn cabdillahi distiwaai can qataadata bni dicaama asaduusi qaala wuxuu ihi xadaanaa anas bnu malik qaala wuxu uhi kaana nabiy sal lay sl nebigu wuxuu ahaa yaduuru mid wareega calaa nisaa'i haweenkiisa dushoodu ku wareegi jiray fi saacati alwaaxidati hal saac gudahood
oo min alleyli habeenka ka mida iyo wannahaari maalinta wahunna haweenkaasuna 11 waa 11 haween ah saacad maxaa laga wadaa saacaddan inaga aan naqaano ee yani 60 minute ama ah waaga meena jirin ee waxaa laga wadaa waqti yar oo zamanka ka mida waqti yar oo zamanka ka mida ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa isu wada mari jiray habeenka ka mida ama maalinta ka mida wannahaari da bimaana aw in la fasira fiican min al-layli habeenka ka mida wannahaari aw in-nahaari ama maalinta ka ama xilli ay isgalaan oo habeen iyo maalin ba ka tirsan ba macna la dhihi karaa wahunna ayagu 11 kow iyo 10 way kow iyo 10 haweenay marka weeyaano oo nabigu markaa qaba sallallahu alayhi wasallam jay qaal wuxuu yiri qataadaway qultu waxaan li anas waxaan ku yiri aw kaana ma aha nabigu yudiiquhu mid awooda oo nabigu ma kari karay kow iyo 10 haween ah inuu muddo gaaban u isu maro waa ragnimo ka tagtay qaal wuxuu yiri anas kunna waxaanu ahayn saxaabadaanu nahay nataxaddathu kuwa ku sheekaysta annahu nabiga sallallahu alayhi wasallam ucdiya in la siiyey quwwata 30 soddon nin awoodooda in arrinkaa loo siiyey ayaan ku sheekaysan jirnay nabiga sallallahu alayhi wasallam yani soddon rag ah awoodda ay u leeyihiin galmada iyo haweenka macnaha wax weeyaan maartay hawshaas soddon nin awoodday leeyihiin in nabiga la siiyey sallallahu alayhi wasallam oo uu ku xoog badan yahay barnaamijkaas ayaan macnaha ku sheekaysan jirnay buu leeyahay saas weeyaan dayib marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu leeyahay xaafid bin xajar haweenka in la badsado inay sunno tahay ibnu jawzi wuxuu yidhi haweenka galmadooda in la badsadona way fiicanta laakiin waxaa khilaafay ninka la yidhahdo ibnulqayimo wuxuu yidhi waxay daciifisaa jidhka marka ha isku badsanin buu saasuu ku taliyey kolley waa arrin tajribada u noqonaysa haweenka in la badsado guursigoodu waa sunno laakiin markii galmada la yidhaahdo waa arrin tajribada u noqonaysa wy macana saas ayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya oo u daliishadeen culimmada odhanaysa macnaha nebiga sal lay slam waajib waxaa ku ahayd haweenka inuu u qaybiyo mid walba uu siiyo kalkeeda siiyo waajib bay ku ahayd qolada odhanaysa ayaa daliishanaya laakiin culimadu waxay u badan yihin inaysan nebiga waajib ku ahayn salawatullahi waslamu caleyh wayna ka jawaabayaan xadiidka oo yani xaggee ishkaalkaasi ka imaanaya habeenka ama waktiga nebigu uu isu wada marayo 11 soo mid iyaga ka mid a maysan lahayn mid baas habeenka haweenaydaasi ay leedahay kuwii kale inaad u daqaqanto lama ogola marka nebiga waajib kuma ahayn miyaa qolada le waajib kuma ahayn baa marka daliishanaya saas macna ayib waa laga jawaabay jawaab ay culimada ka bixiyeen waxaa kaloo laga qaadanaya nebiga salawatullahi wasalaamu caleyhi awoodda loo siiyey jimaaca waxayna daliil u tahay baa laleeyahay dhismihiisa iyo raganimadiisu inay kaamil ahay nebiga salawatullahi wasalam dhammaystirnayd macna taasaa laga qaadanaya ayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya yani nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh waxay sheegaan haweenka faraha badan ee alla u ogolaaday inuu guursado xikmada ku jirtaay shahwo daraaddeed maahay laakiin xikmadda ku jirta waxay yidhaahdaan inay soo guuriyaan cilmi badan oo ummadda inteeda kale ka qarsoon oo cilmiga iyo axkaamta nebigu guryihiisa uu ku samaynaya salawatullahi waslamu caleyh oo ficlan waana sameeyeenoo axkaamtii guriga inta badan iyagaa soo guuriyey haweenkii nebigu sal lay wasalam ayib wa qaala saciidun saciid wuxuu yidhi can qataadata qataada xaggiisa isagoo ka warinay saciidkaasi waa saciid ibnu abi caruuba wuxuu yidhi can qataadata isagoo ka warinaya ina anasan baa xadatahum u sheekeeyey qataadiyi raggiisii oo wuxuu u sheegay 9 niswatin wahunna yowmaidin 9 niswatin buu yidhi 9 haweenuu ka dhigay 9 haween ah yuu ka dhigay hishaam ibni cabdillahi distiwaaina wuxuu ka dhigay riwaayadiisa 11 haweena waxaa raajixa riwaayada odhanaysa 9 haweenay ahaayeen allahumma in la yidhaahdo mooye 11 haweenka waxaa lagu darayaa labadii addoommada ahaa rayxaana haweenaydii la odhan jiro reer bani qurayda ahayd iyo maariyatu alqibtiya oo laba addoommo oo nebigu sal lay slam macnaha waxa wey addoommo u ahaa labada haddii lagu daray 11 noqonaya laakiin haweenka xorta ah 9 bay waxaan u jeedaa 9 haweenay ahaayeen saas macnaha oo waxaa la leeyahay 11 haween oo xor ah xilli ay nebiga isugu yimaadeen ma jirto saas macnaha haweenku guursaday intaa waa ka badan yihiin laakiin yani 9 haween 11 haween ah oo xor ah oo wada jooga hal mar wada jooga nebiga marna ma soo marin baa laleeyahay
jawaabta taasa marka waxay rajaxaysaa 9 niswatin taasa macnaha raajixa baabu ghasli almadi madida dhaqitaankeedii buu baabu yahay iyo wal wudu weysaysi minhu madida laga weysaysto قال إمام كحوري حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حوري حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلتي عن أبي حصين عثمان بن عاصم الكوفي عن أبي عبد الرحمن السلمي وعليه أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب عن حوري قال حوري كنت وحنا رجلا مذاء أو مذبا فأمرت وحنا أمر رجلا لحدلال بدن لحدلال صلى الله عليه وسلم كنت رجلا مذاء أو مذبا وأنصامرنا waa biyaha soo baxa markuu ruuxu xusuusto galmada ama haweeneyda uu la farciyaaro rajulan baan hamadaan fa amartu waxaan amray rajulan nin miqdaad ibn aswadin yahan soo marnay an yas'ala inuu weydiiyo annabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga inuu weydiiyo ayaan faray oo adigu maxaad uga xishootay limakaan ibnatihi gabadhiisu meeshay iga joogto daraadeed gabadhiisa booskeeda daraadeed baan kan u weydiiyo oo anigu u xishooday saas macna laana gabadhii nabigu qabay sallallahu alayhi wasallam Fatima macna فسأل أبو ويدي مقداد با ويدي فقال وحر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ويسيسو أو كويس قاضو واغسل واحد نقدا ذكرك ذكر كاغنا يعني ماشي كا غادي يذكر كي دق كان ويس قاضو ويسدا ويجي بساي لكن كقوي سنون أبو داود النسائي با waxay soo saareen علي ibn Abi Talib wuxuu yiri يعني xagaad dhan baan madida ka qabaysanayay ila dhawarkii dildilaacay ila dhawarkii ila qabow muti xagaad xagaa dhan baan biyay macnaha umar alla markay iga tahay markaasaan ninkan idib barbar nabiga ii weydiiyay rafaaday markaas uu weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxba qabays ma lehe ka weysa qaado meesha ka gaadhan iska dhaq macnaha marka yaani in la iska dhaqayo lagana weysa qaadana weysada jabinayso taa uu macnaha baxway baabu man yatatayyaba isdiibeeyay wuxuu u dalishanaya ninka la yiraahdo ibn daqiiq al-eid xadiidkan wuxuu u dalishaday madida dhaqitaankeeda biyo uma lagu dhaqi karaa dhagax sida kaadidoo kaleeto dhagax laguma kaaftoomi karo leeyahay maxaa yeelay biyo uma la sheegay imaam an-nawawi baa sidaa rajaxay iyo sheekh ibn baaz rahmatullahi alayh oo madida sida kaadidu markay ka soo baxdo aad dhagax iyo waraaqi isaga marin karto kale madidu ma aha buu leeyahay laana iyada waxa ku soo arooray dhaqmo uun taas macna dhaqmo uun taas laga qaadan baynay waxa kale laga qaadanaya oo maalikiyada iyo xanaabilada qaarkood ay xadiiska u daliishadeen dhaqitaanka dakarka dhaqba la yiri inay waajib tahay dakarka awalkiisa ila aakhirkiisa in la wada dhaqo laana dakar marka la yiraahdo xaqiiqadiisu waa isagoo dhanbay dhahay laakiin jumhuurtu waxay yiraahdeen cilada loo dhaqayo marka la fiiriyo oo nijaasada ah meeshay gaadhay baa la dhaqi laakiin magaca dakarka in lagu dhago isagoo dhan la wada dhaqo la yiraahdo ma aha saas way macna oo jumhuurtu waxay qabaan meeshii wax gaadheen un baa la dhaqaya macna isagoo dhan la dhaqashada ma baabu man cid ayuu baab yatatayyaba isdhiibeeyey oo dhiib ismariyey uma kadibna ightasala qabaystay oo wabaqiya uu hadhay aharu dhiibka iyo cadarkii iyo udaygii raadkiisii uu kusii hadhay wuxuu baabu yahay nin isdhiibeeyey intuusan qabaysanin buu waxyaala udgoon ismariyey markaa kadib buu qabaystay markuu qabaystayna qabayskii dhiibkii iyo udaygii raadkiisii ma baabi'inina weli waa kusii yaallaa صاص معنا قال إمام كحول حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عارم قال كحول حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه محمد بن المنتشر قال كحول سألت وحويدي عائشة أيام ويدي فذكرت وحنشق لها إذا قول ابن عمر ابن عمر هذا الكيس بنشق وهذا كان صورة من هذا مرتبة سوشيق نون ما أحب هذا الكلام قول ابن عمر أولادي سيبان الشيء أويري ما أحب مجعلي أن أصبح إنا وابريستو محرما أنا حرما أو أنضخ قفاعيا أما أيقصى أريو ليب حقي كقفاعي يقبر قناي معنا أما يقبع دعي ويقف في السنين فقالت عائشة وحيتري أنا وأيا طيبت طيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان طيب أمري ثم كدمنا طوافه إسمري في النساء هوانكي صدام إسمري ثم كدبنا أصبح وابريستي محرما إسقوا حرما بالنبي وابريستي صلى الله عليه وسلم عليه صاص معنا أنا نبي قديب أمريي هوانكي سمري كدبنا إسقوا حرما بوابريستي وهذا معنا وتصمرنا يو ديب كينا وكأود جيو marka macna wax weeyaan hadaad xarmantahay xarmashada inaad dhiib uu marka isma risaal diideen laakiin dhiib aan horay u soo marisay inuu jikaaga ku sii yaalo mamnuuc ma fi kitab al-hajj waan ugu tagi doonaa insha Allah ta'ala bay waxa laga qaadanayaa xadiidkan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim inay isradin jireen
oo ninkii gafa aan gafka loo dayn jirine la sixi wahaakada saasayna ummaddu ahaydoo ninkii khaladka ha lagu eegto oo ha loo turo la dhihi maayo waa sida dadka caamadu u badan yihiin nin laga daba qaatay oo la radinaya ama koox la radinaya ama daa'ifo hadday arkaan war wadaadkan dadka maxaa la daba dhigay bay dhahayaan wadaadkan dadka maxaa daba dhigay war dadkan haddaan yac la dhihin oon diinta laga celinin diintani dhuquus iyo waxaa ka soo hadhi wax uun macnaha gabay iyo heesaa ka soo hadhi sida diinta nasaarada ku dhacdo kale diintan waxa lagu waardiinaya waxa weeyaan ninkii khaldamada in la yidhahdo waad khaldantay saasay diintu ku jiraysaa oo ilahi subxana wa tacala ku xifdinaya saas macna saxaabada sidan isu radin jirayo laakiin si usluub iyo aadaabi ku jirta macnaha waxa weya ruuxa loo radinaya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka haweenku inay raggooda u adeegayaan horaan usoo sheegnay sooma xadiidkana waa laga qaadan caaisha oo nabiga dhiib u marinaysa salawatullahi wasalaamu caleyh haweenku raggooda inuu adeegaanna waa laga qaadan waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni sunnadu inay tahay haweenka iyo raggu markii macnaha xaaladda galmada markay samaynayaan inay dhiib isticmaalaan saas macnaha inay dhiib isticmaalaan maxaa yeele nebigu sal ly slam haweenkiisa markuu usii socday ayay dhiibka u marisay saas marka inay sunno tahay yaa laga qaadan oy fiican tahay qaala wuxu uhi imaamku xadaana aadam ibn abi iyaas qala wuxu uhi xadaana shucbat ibn alxajaaj qala wuxu uhi xadaana alxakamu ibn cutayba can ibrahim ibn yaziid nakaci can alswad ibn yaziid nakaci can caaishata qaalat waxay tidhi kaanii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa wabiidi iibi ilaa wabiiside wabiis mi idin qorya mise ilaa wabiisi dhiibi dhiibka birbiriqiisa iyo iftiinkiisa inaan fiirinaya aada moodaa oo fii mafraqi nabiy sal lay wasalam nebiga sheexadiisa ku taala walxaal huwa nebiguna muxrimun u yahay mid xarman yacni dhiibkii nebigu u ismariyey iftiinkiisii iyo dhaldhalaalkiisi iyo birbiriqiisii baad moodaa hadda inuu ii muuqdo kaasoo nebiga sheexadiisa ku taala mafraqa waxa la yidhahdaa meesha tinta laga sheexeeyo ee kala barhkiisa ah ilan waxa weye timaha saa loo sheexayn jiray waa banaanta wala sunna saasaa loo sheexayn karaa macana sida qolyahan ay sameeyaan suufiyada timaweynta timaweynta sameeyaan oo kale macnaha marka mafraqa waxa la yidhahdaa meesha timuhu ka kala baxaan oo xag iyo xagga looga sheexeeyey macnaha marka meesha sheexada ah yuu kaga yaalay cadarkaa soo udgaya nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh waana xarmanaa nebigu waana wuu xarmanaa saas wey marka waxaa ka muuqata intuusan haweenkiisa u galmoonin buu dhiibka ismariyey saan soo sheegnay wuu qabaystay dhiibka uu ismariyey baa cuslaa madaxii marka kama baabi'ina weli waa kusii yaallay isagoo xarman buu ku waaberiistay mar danbuu kusii yaallo kasii muuqday nebiga salawatullah waana ka soo udgayey madaxiisana waa ka muuqday dhib male marka intaadan xarmanin mar haddaad ismarisay dhibaato malaha macna kaanii waaba anigoo anduru fiini haddaabaad moodaa inaan fiirinayo macnaha shaygu markuu qalbiga ku qormo oo ishaadu ay macnaha waxa weeyaan uu weli usii muuqdo haddaabaad moodaa inaan arka wey macnaha kaanii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa wabiisi dhiibka birbirqiisii iyo macnaha waxa weye cadarka yani iftiinkiisa oo fii mafraqi nabiy sal lay waslam nebiga sheexadiisa iyo timihiisu meeshay ka kala baxaan dhexdiisa ahaaday walxaal huwa nebiguna muxrimun uu yahay mid xarman saas wey macnaha ayib tan marka qabays lama sheegin cid intuu dhiib marsaday haddana qabaystay bay yahay tarjamadu soomaa dhiib marti basaa ku taala laakiin qabaysi kuma yaalo dhiibka ka dambeeya see lo odhanaya marka waxaa la odhanayaa ama qisadan iyo qisadii horaa isku mid ah ama waxaa la odhanayaa yacni ixraamka ruuxu markuu xarmanayo ayaa waxaa sunno ah inuu qabaysto soo saas ma xarmashada in la qabaysto maadaama ay sunno tahay inuu nebigu qabaystay baa laga qaadan marka kadibna qabayskiisa kadib uu dhiibku ku sii yaalay saasaa laga qaadanaya macna saas marka tarjamadii xadiidku ay isku waafaqayaan hada wabillahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه وحباب يهي تخليل الشعر تنت فرها دحقلقلين سلا دحقلقليو يعني إن تنت تخليل لقصة ميو وفرها لدحقلقليو بمعنى حتى إذا ظن مركي أمليو أما أغادو أنه إسوه قد أروى إنه عكنيسيي بشرته تلكيسة أي أفاض كشبيا عليه تلك دوشي يصومك بيه كشبيا معناها
markuu istiraahdo alalahay yani jirkii timaha hoostooda ahaa timaha ka hooseeyey waad gaadhsiisay biyihii oo waad cokonaysiisay waad dherjiso biyaad ka dherjisay markaa kadib uu biyaha intooda kale ku shubaya macnaha biyaha dusha iskaga shubaya saas macnaha janaabada marka laga qabaysanaya laga wadaa takhliili shacri tinta dhexgelgelinteedii ayuu baab u yahay gacmaraha la dhexgelgeliyo marka la qabaysanayo xataa idaa danna markii uu maleeyo annahu isagu ama u ogaadaba annahu isagu qad arwaa inuu cokonaysiiyey basharatahu jirkiisa waa jirka tinta ka hooseeye ayuu afaada calayhi dushiisa ku shubaya macnaha ayuu afaada calayhi biyihiibuu dushiisa ku shubaya qaala imaamku wuxuu uhi xadaanaa cabdaan cabdullahi ibnu cusmaan almarwazi qaala wuxuu uhi akhbaranaa cabdullah ibn lmubaarak almarwazi qaala wuxuu uhi akhbaranaa hishaam ibnu curwata bni zubayr can abiihi curwata bni zubayr bn alcawaam can caaishata radi allahu tacala canhuma qaalat waxay tidhi kaana rasuulu lahi sal ly slm nabigu wuxuu ahaa ida اktasala haddii uu qabaysto min aljanaabati waxaa laga wadaa hadduu doono ida araada an yaktasilo ida اktasala hadduu qabays doono min aljanaabati janaabada laga qabaysto haddii uu damco wuxuu ahaa nebigu sal lay slam asala mid dhaqa yadayhi labadiisa gacmood buu dhaqi jiray nebigu sal lay slam watawada'a markaasuu weysaysan jiray wuduu'ahu weysaysigiisaoo kale lisalaati salaada uu weysaysanay sida weysada ugu yani salaada ugu weyse qaatoo kaleu marka u weysaysan jiray markuu salaad rabo siduu u weysaystoo kale horaynu usoo sheegnay wuxuu kaga ixtiraasayaa yani isnadiifinta caadiga ah maxaa yeelay tawada'a isnadiifintana waa la yidhahdaa weysada sharcigana waa la yidhahdaa taa luqawigaabuu marka ka saaraya macnaha uma kadib buu ikhtasala nebiguu qabaysay salawatullahi wasalaamu calayh uma kadibna yukhallilu markuu macnaha intaas sameeyu qabi gudagelaya wey macnaha uma ikhtasala wuu qabaysanayaa uma yukhallilu wuu dhex gelgelinayaa biyadii gacantiisa ayuu shacarahu tintiisa dhex gelgelinaya gacanta faraheeda ayuu macnaha timaha saa u dhex gelgelinaya macnaha xataa idaa danna markii uu ogaado yani melihiisa u bato wey macnaha dannada bimacnaa calimaha loo isticmaala baabkeedii in loo isticmaalo macnaha wax weeye yani rujaxaanka ahaana waa suurtagal xataa idaa danna markii uu ogaaday oo uu yaqiiniyey annahu isagu qad arwaa inuu cokonaysiiyey basharatahu jirkiisa oo tinta wixii ka hooseeyey ah ayuu afaada shubay calayhi dushiisa almaaa biyihiibu 3 maraatin 3 goor isku shubay jirka intiisa kalu dhaqay uma kadib buu hasala dhaqay saa'ira jasadihi jirka intiisii kalu dhaqay saa'iradu kelimatu saa'ira luqada carabiga waxay ku timaadaa bimacna alkulli wa bimacna albaqiyana waa ku timaadaa hadhaaga hamba intii soo hadhay waa loo isticmaala kullina waa isticmaala halkan marka waa lagu muransanya qolada siday leeyihin marka uma hasala saa'ira jasadihi jirkiisa intiisii kalu dhaqay intii markii hore uu soo dhaqay mooye intii kale u laabnayd buu dhaqay waa markaan ka dhigno bimacna albaqiya haddii bimacna alkulli laga dhigana saa'ira jasadihi jirkiisii oo dhan buu dhaqay wey macnaha wa qaalat waxay tihi caaisha kuntu waxaan ahaa sanadkii horey ku cadfan tahay wa qaalataasi maaha mucallaq maaha tacliiq maaha wa qaalat caaisha waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid qabaysata ana aniga iyo rasuulullahi sal lay wasalam min inaai weel xaggi baan ka qabaysan jirna weelkaasoo waaxidin mid ah naqtarifu xaala aanu macnaha darsanayno naqrifu xaalaan darayno minhu xaggiisaanu ka darsanaynaa jamiican annagoo idil annagoo wada jirna oo wada joogna oon kala maqnaynoo weelka dul taagan baan ka wada darsanayna mana mid walba gacmihiisu darsanaya xadiidka waan soo marnay maxalushaahidku waxa weeye uma yukhallilu biyadihi shacarahu inay sunno tahay timaha marka ruux uu qabaysanayo inuu dhex gelgeliyo faraha si uu u hubsado in ay biyihii gaadheen timaha hoostooda saas macna ma waajiba mise waajib ma aha sida raajixa waajib maaha waxaa kutusaya inaysan waajib ahayn waxaan soo marnay isagoo oon timihii takhliil lagu samaynin oo biyihii laysku shubay saas macna marka taasaa waxay kutusaysaa libayaan aljawaaz inay iska bannaan tahay bay kutusi tanna waxay kutusaysaa inay fiican tahay oo sidaas macna baabu man cid yatawada'a weysaystay fi ljanaabati janaabada dhexeeda weyse qaatay markuu janaabada ka qabaysanayay ayuu weysaystay uma kadib buu qasala dhaqay saa'ira jasadihi jirka intii kaluu dhaqay jirka intii soo hadhay intuu ka weyse qaatay mooye intii kaluu dhaqay oo macnaha ka qabaystay walam yucid aan soo celinin gasla mawaadici alwuduu'i weysada dhaqitaankeeda meelaheedii waxaan u jeedaa meelihii dhaqitaanka ee weysada yani weysada meelaheedii la dhaqay
taana aan soo celinin maratan ukhraa mar kale aan soo celin walam yucid aan soo celin gasla mawaadici alwuduu'i waysada meedii dhaqitaankooda aan soo celinin oo aan maratan ukhraa mar kaleeta soo celin mar kale aan dhaqin macnaha wuxuu ka wadaa ruux janaabada markuu ka qabaysanayey weysaystay weyse qaatay markuu weyse qaatayna jidhka intiisii kala dhaqay ee soo hadhay yani wejigii iyo gacmihii iyo markii laga reebo lugihii iyo intii kalau dhaqay markuu jidhka dhaqayeyna oo uu qabaysanayey xubnihii uu ka weyse qaatay dhaqitaankooda ma celinin ee wuxuu ku kaaftoomay dhaqitaankii weysaysiga ila markaad weysaysanayso waa inaad gacmaha dhaqdo wejiga soo dhaqdo markaad qabaysanayso ayagii haddana dhaqitaan inaad ku celiso maqasaba maya wuxuu leeyahay qasab maaha saas macna dhaqitaankooda iyaga waxa way qabaysku waa weysadii oo weysadii baa waxay kor yeeshay xadadkii macnaha waxa way qabayskii looga baahnaaba weysadaa kor yeeshay buu isagu wataa macna saas weeyaan macna oo walam yucid aan soo celinin qasla mawaadici alwuduu'i weysada meelaheedii dhaqitaankooda aan soo celinin maratan ukhraa mar kale ee ku kaaftoomay uun dhaqitaankii weysaysiga iyaga kaga kaaftoomay macna qaala imaamku wuxuu yihi xadaanaa yuusuf ibnu ciisa macnaa sidaa markii la yidhahdo jumhuurtu waxay leeyihiin yani markuu ruuxu weysaysanayo xubnaha ka weysaysanayo waa inuu niyeysto qabayskii si xadadkii weynaa ay weysada u rafciso haddii laakiin uusan niyeysanin xadadkii weynaa inuu weysadan iskaga rafcinayo marka waxay u baahanaysaa bay leeyihiin inuu markuu qabaysanayo dhaqo si niyadii ay uga dambeeyaan dhaqitaankooda macna ayb qaala imaamku wuxuu yihi xadaanaa yuusuf ibnu ciisa ibnu yacquub almarwazi qala wuxuu yihi akhbarana alfadl ibnu muusa sinani qala wuxuu yihi akhbarana alacmashu sulaymaan ibnu mahraan can salim waa kuma salim inbadan baan soo marnay xadiiskan salim ibni abiljacd intaa maclumada 7 goor 6 goor bina soo maray salim ibni abiljacd can qurayb ibn muslim ibn abi muslim mawla ibn cabaas can ibni cabaasin can maymunata qaalat waxay tidhi wadaca rasuulu lah sal ly sl nabigu uu dhigay waduu'an biyo uu ku weysaysto biyo dheh waduu'an biyo lagu dahaaro qaatuu dhigtay lijanaabatin buuna u dhigay janaabo daraaddeed saas maana ama waduu'an biyo uu ku dahaaro qaatoo lijanaabatin u sugnaaday janaabo daraaddeed ayuu biyaha u dhigtay waan soo marnay nebigu isagu biyaha ma diyaarsaninoo ma dhiganinoo waa loo dhigay laakiin waxa weyaan maarata waa yani ruwaadda werintooda macnaha kala gedisan oo alfaada yani ruwaadda kala badbedelaysa wadaca rasul lah sal ly sl nebigu u dhigay waduu'an biyo lijanaabatin ayuu u dhigay faakfa'a markaasuu gediyey weelkii biyamiinihi gacantiisa midig buu ku gediyey isagoo isticmaalaya gacanta midig baa la isticmaalaya calaa shimaalihi bidixda dusheeduuna ku rogay oo weelkii ku gediyey maratayni 2 goor oo 3 ama 3 uma kadib buu qasala dhaqay farjan farjigiisu dhaqay maratayni aw 3 yaa iskale shakiga ya mashfaas kale uma kadib buu qasala wuxuu dhaqay farjan farjigiisu dhaqay oo biyaha waxa loo soo gedinahayo gacanta midig baa weelka haysa gacantii bidixda farjiga dhaqaysay yani ku gedinaysaa macna uma kadib buu daraba wuxuu ku dhuftay yadahu gacantiisa ayuu bilardi dhulka ku dhuftay aw ilxaa'iti ama derbigiibuu ku dhuftay maratayni 2 goor oo 3 ama 3 wuuna dhaqay markaa uma kadib buu madmada luqluqday oo wastanshaqa sandaarsaday waqasala wuxuu dhaqay wajha wejigiisa iyo wadiracayhi dhudhumadiisuu dhaqay uma kadib buu afaada ku shubay calaa ra'si madaxiisu almaa biyihii ku shubay uma kadib buu qasala dhaqay jasadahu jidhkiisuu dhaqay uma kadib buu tanaxa wuu durkay meeshii taagnaabuu ka durkay faqasala wuxuu dhaqay rijlayhi labadiisa lugood qaalat waxay tihi caaisha faataytu waxaan u keenay nabiga bikhirqatin karin yani gabal mara ah falam yuridha mu uusan doonin nebigu sal lay wasalam yani maro uu isku ingejiyo oo uu isku tirtiro ayaan u keenay fajacala wuxuu bilaabay nebigu sal lay wasalam yanfudu inuu firdhiyo biyihii biyadii gacantiisa inuu iskaga firdhiyo maadaama shaygu isku gejin lahaa uu diiday inuu marka gacanta saa isaga firfirdhiyo biyihii jidhka ku hadhay ayuu marka nebigu bilaabay salawatullahi wasalaamu calayh xaggee marka laga qaadanayaa inuusan nebigu sal lay wasalam xubnihii u weyseeyey uu weyse daraaddeed u dhaqay markuu qabaysanayay inuusan dhaqitaankooda ku noqonin xaggee laga qaadanaya waa muran baa ku jira xadiiska taqriiban daahir kuma cadda qaar waxay leeyihin culimada ka mid a
waxaa laga qaadanayaa riwaayadii hore ee caaisha maymuna way xadiis qaalat maymunatu way caaisha nidhiya xadiiskii hore ee baabkan kii ka horreeyey ku soo arooray caaisha ay lahayd ayaa wuxuu ina yidhi uma gasala saa'ira jasadihi soo ma kan laakiin uma gasala jasadahu ubina yidhi kaa hore caaisha yaad moodaa marka inuu ku cad yahay jidhka intii u laabnayd unbuu dhaqay nebigu salawatullahi waslamu caleyh markaan saa'irada ka dhigno bimacnaa yani baaqiga ka dhigno intii soo hadhay buu dhaqay laakiin xadiidkan maymuuna asagu kuma cadda tarjamada uu bukhaari sameeyey yani munaasabada kuma cadda saa daraaddeed bay culimmada sharxaya oo munaasabada tarjamada iyo xadiis ka dhexaysa raadisay iyay aada ugu doodeen wuxuu leeyahy xaafid ibn xajar meesha uu yidhi uma gasala jasadahu meeshuu horta deliishanaya waa halkaa waa xadiis ka deliishanaya wuxuuna leeyahay gasala jasadahu waxaa laga wadaa bimacnaa gasala maa baqiya min jasadihi jidhkiisa wixii ka hadhay ayuu dhaqay ee u saasaa laga wadaa buu bukhaari wataa waxaana taa ku tusaya buu yidhi gadaal dambe muxuu ka yidhi uma tanaxaa fagasala rijlayhi lugihii buu dhaqay baa gadaal laga sheegay haddii marka jasadahudaa hore laga wado jidhkii oo dhan laga wado lugaha dhaqitaankooda in gadaal laga sheego macno ma yeelateen ee lugaha gadaal laga sheegay dhaqitaankoodu waxay ku tusaysaa uma gasala jasadahudaasi inay macnaheedu aysan ahayn jidhkii oo dhan ay tahay jidhkii qaar ka mida saas man jidhkii qaar ka mida maxaa yeele haddii jidhkii oo dhan laga wado hadda luguhu jidhkaa hore geli lahayen sooma maxaa marka dib looga sheegi in layska daayay ahayd maadaama dib laga sheegay qayb ka mida wey marka jidhkii qaar ka mida ayuu dhaqay intee wey marka waa intii marka aan markuu weysaysanaya uusan dhaqin saasuu wataa yani taqriiban saasuu leey xaafid ibn xajar culimo kalena qaab kaleeto ayay u wajahayaan oo macnaa waxa wey tarjamada u muujinayaan baabun idaa dakara fi lmasjidi wuxuu baab u yahay idaa dakara hadduu xusuusto fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa hadduu ku xusuusto annahu junubun inuu janaabo qabo yakhruju wuu bixi kamaa huwa sida uu yahay buu ku bixi sida uu yahay isagoo janaabo qabo bixi macnaha wey walaa yatayamamu mana gebagabaysanayo macnaheed waxa weye adoo masaajidkii dhex fadhiya ayayba janaaba kaa timid ama ma ahe markaad masaajidka imaanaysa waad janaabo qabtee waad ishalmaantay adoo masaajidka dhex fadhiya umaad xusuusatay inaad janaabo qabto ayib masaajidkii wuxuu bukhaari leeyahay sidiisii isagoo ah oo janaabo qaba buu masaajidka ka bixi oo qabays raadsan mana gebagabaysanayo ma tayamumu leey wuxuu radinayaa oo hadalkaasinayaa culimmada qaar ka mida sida thawri iyo isxaaq iyo qolyale iyo maalikiyada qaarkood oo leh hadduu ruuxu uu janaabo masaajidka dhexdiisa ay ku dhacdo ama isxusuuso isagoo masaajidka dhex jooga inuu janaabo qabo intuusan bixin waa inuu gebagabaysto meeshaa uu fadhiyuu ku gebagabaysan markaa kadib buu bixiyo qabays raadsanay oo maxay tahay faa'iidada ku jirta faa'iidada ku jirta waxa weeye shaygan masaajidka inaad dhex fadhida adoo janaabo qaba halmaan daraaddii baa lagugu ogolaaday sooma dembi wuxuusan kaaga raacin waad halmaansanay mar haddii halmaankii meesha ka baxood xusuusatay inta aad masaajidka ku dhex jirto welina aadan ka bixin aadna xusuusatay soo dembi maa xageed ka geli waa inaad marka gebagabaysatood markaba gebagabaysi la gaadho markaa kadibna aad baxdo adoo macnaha waxa weye gebagabaystay laanna biyo markaa kama gaari karta laakiin waxaad ka gaari kartaa caraad ka gaari kartaa qolyahaas marka sidaa leh ayuu bukhaari radinayaa oo wuxuu leeyahay waxba la gebagabaysan maayo intuu baxun buu qabays raadsanaya macna qaala imaamku wuxuu yihi xadaثana cabdullahi bn muxamed aljucfi almusnadi albukhaari qala wuxuu yihi xadaثana cusmaan ibn cumar ibn faris abu muxamed albasri qala wuxuu yihi akhbarana yunus ibn yaziid alayli can الzuhri muxamed ibn muslim can abi salamata bn cabdiraxmaan ibn cawf الzuhri can abi hurayrata cabdiraxmaan ibn skr qaala wuxuu uhi uqiimat isalaatu salaadii baa la aqimay wacudilat waana la simay asufuufu safafkiina waa la simay qiyaaman xaalo yihiin dad kuwa taagtaagan yani salaaddii baa laysu taagay safafkiina waa la simay fakharaja waxaa soo baxay ilaynaa xagga naga rasuululahi baa noo soo baxay sal lay waslam falamaa qaama markuu istaagay fii musallaahu meeshuu ku tukanahayey ee uu salaada ku geli lahaa markuu istaagay ayuu dakara wuxuu xusuustay nebigu annahu isagu junubun uu yahay mid janaabo qabo salaaddii baaba la geli rabaaba waaba laysu taagay waa la aqimay waxba ma laabna
allahu akbar markuu dhihi rabo ayuu xusuustay inuu janaabo qabo nabigu salawatullahi wasalaamu calayh faqaala markaasa wuxuu yihi lanaa annaga wuxuu nagu yidhi makaanakum yani ilzimuu makaanakum meeshiina laazima halkaa macnaha sii jooga wy macnaha halkaa sii jooga ha dhaqaaqina ha bixina uma rajaca markaasuu nabigu laabtay salawatullahi wasalaamu caleyh guydihiisiibuu ku laabtay faاktasala wuu soo qabaystay uma kharaja wuu soo baxay ilayna wuu u soo baxay walxaal ra'suu madaxiisu yaqduru uu dhidhibcayo biyihii qabayska ayaa tinta kasii qoyanoo madaxa ka qoyanoo way ka dhibdhibcayaan macna isagoo saasuu noo soo baxay fakabara markaasuu salaadii yani galay oo allahu akbar ku galay fasallaynaa waan tukanay macahu nabiga la jirankiisaan tukanay waan la tukanay nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh marka nabigu isagoo janaabo qaado soo masaajidka dhexdiisa muuse isku xusuusan miyuu gebagabaystay maya wuu baxay qabaysi buu raadsaday marka xadiisku waa ku cadyahay tarjamada sidaa macnaha wax bukhaari u daliishanayo ayuu ku cadyahay waana sida jumhuur ahlilcilmi ay qabaan culimadu saasay u badan yihiin qolyahaasaa khilaafay uu bukhaari radinaya hadalka inuu ku radiyo uu doonayo macna ayb waxaa kaloo laga qaadanaya oo macnaha laga faa'idaysanaya xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqata salaada markii hore la aqimay mooye markuu nebigu soo laabtay salawatullahi wasalaamu caleyh aqimaad dambe looguma noqonin mar labaad loo aqimin lama sheegin waxaa laga qaadan bay marka leeyihiin salaada aqimaadeeda iyo gelitaankeeda inuu wax u dhaxayn karaan saas maana oo inta la aqimo xoogaa inta la iska joogo haddana markaa kadib la geli karo salaada aqimaan labaad in la soo celiyana ayna u baahnayn taasaa loo daliishan baa laleeyahy ayb taabacahu waxaa raacay cabdulaclaa waxaa la raacaya waxa weeyaan waa ninka yidhahda cusmaan ibnu cumar cusmaan ibnu cumarka sanadka ku jira uu mutaabaceeyey cabdulaclaa ibnu cabdilaclaa assaami baa la yidhahdaa can macmarin buu ka warinaya macmar ibnu rashid can izuhriyi buu ka warinaya marka xaggey isugu imaanaya zuhri bay isugu imaanaya saas maana ma mutaabaca naaqisa mise mutaabaca taama wa ya naaqisa wa mutaabaca naaqis lana shaykhu shaykii bay isugu imaanaya saas maana sheekha isugu imaanaya ayb warawaahu waxaa wariyey xadiidkan alawsaaciyu baa wariyey cabdiraxmaan ibnu camr ibn abi camr baa la yidhahda can izuhriyi buu ka wariyey macnaheedu waxa weeyaan labaduba waa tacliiq ta horena waa tacliiq ta dambana waa tacliiq zuhri wuxuu isaguna mutaabaceeyey xadiidka la warinayaa macmar sooma macmar iyo yunus ibnu yaziid ayuu isaguna mutaabaceeyey oo zuhri buu isaguna xadiid ka warinaya macnaha marka labaduba waa mucallaqo waa laba sanado macnaha mucallaq wey macnaha inuu ku tuso un taqriiban xadiidku inuu duruq badan leeyahay ujeedadu intaa baabu nafdi lyadayni labadii gacmood firdhintoodii ayuu baab u yahay min algusli qabayska xaggiisa laga firdhiyo can iljanabatina laga qabaysto minta jaarumajruurkaasi nafdiga ku tacaluji can iljanabati jaari majruurkaana gusliga ku tacaluji saas maana nafdu lyadayni labadii gacmood firdhintoodii min algusli biyaha xaggooda yani qabayska xaggiisa laga firdhiyo oo biyihii lagu qabaystoo jidhka ku yaalla labadii gacmood lagu firdhiyo macnaha oo lagu tirtiro jidhka lagaga firdhiyo can iljanaabati laga qabaystay can ilgusli qabaysiga can iljanaabati janaabo xaggeed laga qabaystay saas macnaha ujeedadiisu waxa weeye inuu ku yidhaahdo ruuxi markuu qabaysto biyihii jidhkiisa ku soo haray ee jidhka saarnaa gacmuhu iskaga tirtiri karaayoo gacmuhu iskaga finfininin karaa macnaha gacmuhu ayuu iskaga tirtiri karaa saas macnaha qaala imaamku wuxuu yihi xadaثana cabdaan cabdullahi bni cusmaan almarwazi qala wuxu uhi akhbarana abu xamsata asukari muxamed ibni maymuun baa la yidhahdaa inta badan wuxuu ku yimaada kunyadiis abu xamsata asukari qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay alacmash sulaymaan ibn mahraan can salim ibn abiljacd can kurayb ibn abi muslim can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi qaalat maymunatu maymuna waxay tidhi wadactu waan dejiyey um lmuminiin wadactu waan dhigay linabiy sal lay slam ayaan guslan biyo u ku qabaystay ayaan u dhigay fasatartuu markaasaan asturay bithawbin maraan ku qariyay nebiga sal lay slam yani maraan dadka ka xijiyey uu qabaysanaya meel marka banaanayd ayay macnaha maradii iyadu ku haysaa wasaba wuu shubay nebigu calaa yadayhi labadiisa gacmood buu ku shubay biyihii fakasalahuma wuu dhaqay uma kadibna saba wuu shubay biyamiinihi midigtiisa ayuu ku shubay oo adeegsaday macnaha biyamiinihi midigtiisa ayuu adeegsaday calaa shimaalihi bidixda dusheeduna ku shubay fagasala wuu dhaqay farjahu farjigiisu dhaqay fadaraba wuu dhuftay biyadii gacantiisu alarda dhulka ku dhuftay famasaxaha wuu ku tirtiray yani saasuu ugu xoqay
ثم كدب وغسلها بقي عنك بيو كالرعي بالغولا فمضمض ونغلقضي واستنشق وصندر سدي وغسل ودقي وجهه سي وذراعيه لبدي سبدون ثم كدب وصب شبي على رأس مدح سدوشي سبيه كشبي وأفاض وشبي على شركي سدوشي كشبي بيه معنا ثم تنحى ودركي ليش تغلب قدرك فغسل ودقي قدمه لبدي سبدون فناولته وحن سيبتي وحن أفديي أون أفديي وميمونة ثوبا مرأ أيام النبي صلى الله عليه وسلم أفديي فلم يأخذه مقادا يعني وحن أفديي والله عي أون سيي مرأ وادي مقادا فانطلق مركز الذي قلت لي وماشي هو قبيساني كبقاقي والحال هو يسوي ينفق وفردينيو يديه لبدي سكعمود لو أنا كعمود معنا فردين صوت السامر كليله هو لكن فردين تأيجي كريم فردين لقد هو الإنسان صامر نويه بيه شركة صارناه معنا وحوي يكون فردين يا وصاص معنا وحوي سواء يعني بيها شركة وسط يشتري يا معنا طيب وحمرك اللي قالنا يا مسألة أوبا بيو إن بيها لسكجات ترتيل كرت شركة ومحا معنا في الشراء قل يا واحد هذا ما دام بيها عبادة اللجوء السبعي قبيس يويسد أنت شركة كسي قيين روح أشر نوقر يطيرات هذا السنة في على وحويان إلا الداية بيها صلى تابنين فاسم معنا قل يا هذا زمرك ليه ما إيه بيها ولا اسكتوا الدولين ترى لبنا ملها معنا لم يأسكتوا الدولين صلى الله عليه وسلم هذا مرك أشر إرادة وضط بيه إلى الشركة كسي لا لن يديس لها صلوات الله وسلام عليه فاسم معنا وحاول تشهر لي تقريبا إن يعني مرضها ونبي قديد صلوات الله وسلام عليه وشكمان كيا مرضها يعني اللي اسكمر مريني الشركة ما واحد كتصفي سائله حرام يهو سنبنانين ما يتصفي بمجرد روحه كتصفي إلا قفي عيه حي لو فعل نبي فعل فيه صلوات الله وسلام عليه ويجيبنا كمتصة ويجيب كمتصة لكن روحه كتصة جواز باب كتصة سيدا معناها مقرر وقوع كتبتها أصول الفقه قاعد ويجيب كوحة كتصة أمر كيسة صلوات الله وسلام عليه أمر كوجوب فائدية لكن فعل يسويه فائدية جوازه فائدية ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مركز يسوي إنه معناها استعماله يسوي استعماله كتجي تنكيس وحو كتصية إن معناها شيء لقف عيه وسمينته أيضا لكن أيضا إنه حرامه لقف هذا الماء فاصل معنا بعد من عد أي بابها بدأ باللابي بشق الرأس مدح عيسى من عيسى شقه الأيمن أميركتها في الغسل قبيس كالحديث قبيس كالحديث روحي مدح لنكي سميري كب اللابي أيو باب يهي يعني بيها أنضوشة ونسكيشو هنا كالفور مريء أو لنك ميري كوهر مريء لنك بيدحنا كدن بيسي قال إمام كبير حدثنا خلاد بن يحيى ابن صفوان الكوفي قال يقول حدثنا إبراهيم بن نافع المخزومي المكي عن الحسن ابن مسلم ابن بياض ابن يناق المكي والإدارة عن صفية بنت شيبة بن عثمان الحجري عند جمهور العلماء والصحابي يدوى في الأمة العلماء عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت وحيتري كنا وحن أهين هذا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت هذي أصيبته كل عضو إحدانا مدى جنابة هذي أصيبته أخذت مد قارتيها وحي قبن شرتي بيديها كعنتها أي قاري شرتي 3 صدح قرب يكسو قاري شرتي بيها فوق رأسها فتصبه مركزي كشو بشرتي فوق رأسها ملح هذا دوشي سيكشو بشرتي معنا يعني بيها يسو قاري شرتي لو رجع عم صدح قرب فوق رأسها بيكسو قاري شرتي أما فوق رأسها بيكشو بشرتي سيدي روايتك لا يعبيني معنا بيها لسو قاري صدح لا طيب ملح دوشي كشو بشرتي ثم كذب بيدها كعنتها أيين كسو قادي جبتي ثم تأخذ وقادسة بيدها كعنتها كسو قادسة على شقها لنعالي كسو قادسة الأيمن أمريكتا وبيدها كعنتها كسو قادسة الأخرى أيكالة على شقها بمركة كسو بيسا أما كسو قادسة شقه لنعي الأيسر بالحداء فاسم معنا يعني إذا نمك قبيسانيسو سدح قرب مدح كسو قادي جبتي مكاسي مدح كسو جبتي كدب بيجي عندك كسو قادي جبتي دنك ميديك بكسو جبتي هذا نك عندك كسو قادي جبتي دنك بيديك بكسو جبتي طيب حاجه marka laga faa'iideysanaya madaxa marka la dhaqayo dhankiisa midig in lagu hormaro xadiidku miyuu ku cadiyaa ma cadda maxaa yeelay
calaa shiqiha alayman wa shiqiha alaysar waa jirkii o dhan ra'si lama sheegi soo ma ra'siga dhaqitaankiisu waxa weyaan akhadat biyadiha alaaan fawqa ra'siha un baa layidhi shiqiga aymanka iyo aysarka meesha lagu tilmaamay waa jirkii jirkeeda kale markay dhaqayso madaxii mooye jirka markay dhaqayso bay dhanka midig ku shubi jirtay haddana dhanka bidix bay usoo qaadi jirtay madaxa xaggee buu ka qaadanaya marka madaxa wuxuu ka qaada xadiisku inoo soo hormaree wuxuu inoogu soo hormaray baabu man bada'a bilxilaab aw idhiib baabkii buu inoogu soo hormaray marka nas isagoo abuu ku soo hormaray saddexda gooree madaxa loo soo qaaday inay marka hore midigta ku hormaray kadibna bidixda lagu hormariyey bidixda lagu xijiyey macnaha marka yani riwaayadaas inoo soo hormartay baa taqriiban ku cad marka saddexda gooree madaxa loo soo qaaday baa bidixda iyo midigta la kala hormariyey halkaasuuna ka qaadanaya madaxa marka la dhaqayo in midig qaybta midig la hormariyo dhanka midigta in lagu hormaro macnaha ayb ama waxaa la odhanayaa uma biyadiha calaa shiqiha alaymanka oo jirkii oo dhan soo gudagelayo ayaa waxaa soo gelaya madaxa dhankiisii midig ilan jirkii buu ka mid yahay shiqiha alaysarna waxaa soo gudagelaya madaxa dhankiisii bidix halkaasuu ka deliishanayana waa la dhihi karaa macna baabu man cid ayuu baabu yahay iqtasala qabaystay curyaanan xaalu yahay mid qaawan waxdahu keligii ah fi lkhalwati cidlo dhexdeed meel cidlo isagoo ku keli ah ayuu qabaystay waana qaawanye waman cidna baab buu yahay tasatara is-asturay oo markuu qabaystay isqariyey fatasaturu is-asturida ayaana afdalu fadli badan wuxuu leeya imaamku cid isagoo meel cidlo ah jooga intuu isqaawiyey qabaystay iyo cidda aan maradii iska furina maradiisii isagoo qaba ku qabaystay taa danbaana fadli badan oo ruuxu isagoo asturan inuu biyaha isku shuba ah taa danbaa fadli badan saasuu macnaha leey wuxuu wataa ujeedadiisu waxa weeye inaad maryaha dhan iska dhigto maadaama keligaa aad tahay ama meel dhisan baad ku jirtaa ama meel bannaan baad joogtaa lakin waa dhul cidlo ah oo keligaa baad joogtaa waa balli ama war weeye ama macnaa waxa webi weeye biyaad ka qabaysanaysaa waana keligaa marka idinkuma aragta isleeda idinkuma aragto markaas ruuxa sidaa isagoo qabaysanayahay waxaa u bannaan inuu maryaha iska dhigo waxaa ka fiican inuu maryihiisa ku qabaysto isagoo asqan qabay saasuu wataa macnaha waana sida jumhuur culamaa ay qabaan wey macnaha jumhuur culamaa saasay qabaanoo sida fadliga badan is-asturidda weye laakiin waa la isqaawin karaa macnaha wuxuu radinayaa qolo ibnu abi leyla nin la yidhaahda iyo shaaficiyada qolyo ka mid a oo yidhi waaba xaaraanba in maryaha la iska dhigo qolyahaasuu radinaya or waa iska bannaantahay lakin laga fiican yahay buu wataa macnaha sidaas ayb wuxuu yidhi imaamku waqaala bahzu wuxuu yidhi can abiihi aabihi wuxuu ka yidhi oo ka wariyey can jaddihi awowgii uu ka warin isaguna can inabi sal lay slam buu ka warin allahu axaqu an yustaxya minhu min annaas xadiiskaas allahu alle ayaa axaqu u xaqnimo badan an yustaxyaa in laga xishoodo minhu isaga xaggiisa min annaasi dadka isaga uga mudnaan badan dadka in laga xishoodo waxa ka mudnaan badan in alla laga xishoodo subxana wa tacala saas way macana xadiidka bahz ibnu xakiim waa mucallaq uu tacliiqiyey bahz ibnu xakiim ibnu mucaawiya ibnu xayda saas way macana marka aabihii waa mucaawiya waxaan dhihi lahaa xakiim awowgiina waa mucaawiyat ibnu xayda mucaawiyat ibnu xayda marka waa saxaabi marka bahz ibnu xakiim can abihi can jaddihi wuxuu ku badan yahay kutubta sunanka iyo masaaniida sidaasuu ku wariyaa sanadka noocaasoo kalena jumhuur muxadisiin waxay u badan yihiin bahz ibnu xakiim can abihi can jaddihi sanadkiisu waa xasan saas macana sanadkiisu waa xasanoo saxiix ma gaadhsiisna daciifna ma ah saasay u badan yihiin bukhaari marka shardigiisa ma gaadhsiisna soo ma mar hadduusan shardigiisa gaadhsiisnayn xadiidkuse uu sugan yahay ayuu wuxuu ku tacliiqiyey siqatu aljazmi soo ma waqaala bahz ibnu xakiim buu macana xadiidka marka waxaa warinaya ahlu sunankaa soo saaray wuxuuna ahaa nabiga sal lay slam waxaa la weydiiyey yani waxaa la yidhi ya rasuul allah cawraatuna maa na'tii minha wamaa nadar cawrooyinkanaga maxaan la imaanaynaa maxaanse ka tegaynaa macnaa maxaan qarinaynaa maxaanse muujin karnaa wey markaasaa nebigu wuxu uri sal lay wasalam cawradaada qari ilaa xaaskaaga iyo addoontaada mooye dadku hadday wada joogaan nebigu ka waran haddaad kari karto inayna cidna cawradaada arag saa yeel buu nabig sal lay waslam wuxuu ihi nebigu haddaan keligay ahay ka war markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam allahu axaqu an yustaxya minhu min annaas
saas macna hadda kaliga tahay xataa Allah oo xaqnimada in laga xishoodo isaga dadka uga xaqnimada marka Allah ku arkay Soomaa Allah ku arkay marka inaad ka xishooto oo macna wax weeye adoobta macna wax weeye ku qabaysato dal isqaawinin taasa macna xadiiska laga qaadanayo bay mawjuub ku tusaya zaahirkiisa wujuub waa laga qaadan lahaa waxay ilaahay laga xishoodo waa waajib Soomaa laakiin wujuubka waxa ka sarfiyay labadan xadiis oo keenay doonaa Bukhari oo zaahirkooda uu ku cad yahay in iyadoo la qaawan yahay la qabaystay saas macna wala yaari jirnay ardada ka timaada Hindiya iyo Aasiya yaan arki jirnay iyagoo mariyahooda ku qabaystay oo jaamacadda dhiganin marka iyagoo maradu qoyantaa in la kala soo baxayaan suusha wala yaari jirnay marka warnimanka macbuulayni قال إمام كثير حدثنا إسحاق بن نصر إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي قال كثير حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه الصنعاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم كانت وحي أهيد بنو إسرائيل غير بني إسرائيل وحي أهيين يغتسلون كوق بيستاء أهيين عراة الحالين كوق قاون غير بني إسرائيل قار كمدون غير بني إسرائيل قار كوب أيام مال المه كمد وحي أهيين كوق بيستاء يغوق قاون ينظر أما كانت بنو إسرائيل وحي أهيين يغتسلون كوق بيستاء عراة كوق قاون ينظر حاله أفيرنا بعضهم قاركود إلى بعض قارك كلا أفيرنا أيوة ورشوين تلس قطاوية وديك اللي جود جلي مركزها مد قارب قارك كلا عوردي ساركيا صافي هنشر المعنى من يقول ما نريد الدين تلا أو أقلين مثل مخالفة هيدا دين تلا ما أقلين يعني وحيان من حبيجي الدين ده يكون سمينين لا بد من ذلك وحلي حفظ الحجر وحلقة قادنا يا إلى يكون بنانيد دين تلا كتاب التوراة inay ku banaanayd ayagoo qaaqaawano wada jooga inay wada qabaysan karaan saas macna laakiin Qurtubi iyo qolyale iyo Ibn Battal iyo waxay leeyihiin ma aha tawreedi way diidanayde nimankan mukhaalafa daradeed bay suuqa qaawinayaan oo marka wala yiri ay وكان وقوها موسى نبي موسى وقوها isagu yaqtasilu mid qabaysta waxay xal u yahay hadii la yiraahdo diintooda ku banaanayd nabi Muuse marka sida fiican buu isagu qaadan jiray Soomaa sida afdalka oo ah illa isqariya ayaguna jawaaska iyo banaanida qaadan jireen ku caawisan jireen macna marka nabi Muuse isagu keligii buu qabaysan jiray faqaalu marka taa waxay yiraahdeen wallahi ilaahi baan ku dhaaranay ma yamnacu umadidana Muuse an yaqtasila inuu qabaysto macna la jirankin meesha aan wada joogno inuu ku qabaysto umadidana illa annahu xaala uu yahay mooyee annahu xaal annahu isagu aadaru uu yahay mid sheelala mooyee فاسمعنا يعني واحد كلا أمدي دنيه منك الشيلة تطال الشيلة وصلت غلال حين هو ويلاده بمعنى مركا وحويان شيلو لي مركا الشيلة يا لغا أركن درادة بدورك أو بحياء ومعناها علمة أنتجيا من هدو عيب لعانا يعني بس كنحن ذوكو قبيسا لها معنا فاسيين والله ما يمنع أمدي دنيه به الموسى نبي موسى أن يغتسل إنه قبيسا معنا لتشيرا كنغا إلا حال أنه يسوي آدروا يهيموا يا نميد معناها وحويا الشيلة لي طيب فذهب يوتغي مرة المرأة يوتغي قيل إنه قبيسي وأبحي فوضع وحو لغي نبي موسى ثوبه مردي يسيبه على حجر ضيح صارتي فاسم معنا نبي موسى مرة مردي بيسكبدحي ضيح صارتي سوى قبيس ففر وحى عرضي الحجر يعني وحو ينطقيحي بعرضي بثوبه مردي يسيبه العرض ضيح المرضى صارتي أمه مردي إسلسي داي فخرج موسى مركب بحي في إثره نجيح مرضى الله على الرجال كيسيبه كبحي وكذب التقييم على ضوء أرضي وأخذ يعني ويقول حاله ليه هيبو نجيح كذب بحي ثوبي يا حجر والمرضى إذا بجحوا ورجحيه مرضى إذا يعني مرضى إذا إيدك وان ورجحيه مرضى إذا إيدك ورجحيه مرضى إذا إيدك له ودوء أرضه حتى نظرت إلى أيفيري بنو إسرائيل ريبنو إلى أيفيريان إلى موسى إلى أيفيريان بيحي سوء مرضي ونسي أردي كوح ريبنو إسرائيل وميل شوكتب وغلاق عبحي نبي موسى بيحي بدو أردي خلاص ريبنو إسرائيل نبي موسى قاوم بأكل مرضي كوح دي ميشة وقتني يا أركي أفعل حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا مركزة وحيدا والله إلهي بانكو دارنا ما بموسى كما صغنا من بأس واحد بقى ورنك واحد بقى مقابل منكو الشيطان يقول شيء ملها صافي ده المعنى واخذ وحو قاتل ثوبه مرضي يسيبه قاتل فطفق مركزه حب الله
ضربا قراعس بو بلاد بالحجر دغخي وقراعه دغخي بو marka ul kala daalay oo garaacis kala daalay macna yaani maxaa bayax iga qaadatay way marada iga la soo caraf oo dhii ceebayso macna wax way dadka dhaxdiis marka yaani waxa la isweydiinayo leeyahay khidaabkan hadalkan uu jeedinaya dhagax uu leeyahay wariya dhagax oo idig maradayda wariya dhagax ma jamaadaad baa la hadlaa jamaad miya hadalni waxa la leeyahay maadaama uu dhagaxan kadaati tasarrufaadkii iyo ficilkii kuwa aqliga leh ee noolaha ah tasarrufaadkoodii oo kale maadaama uu ku kacay wuxuu ula dhaqmay sidii wax aqli loo kale lana wax aqli leh wax la carara Soomaa saas wax noola sida daradeed buu isaguna noola ka soo qaaday oo saa ula khidaabay macna tayib garaacista muxuu garaacay marka wuxuu u garaacay xana hada wixii ku ximeeyo saas oo kale ku ximeeyo wuxuu doonay ha ahaadee bal ilaahi baa qadaray iyo qadar ilaahi oo ku timid iyo waa ma'muur inta la gaarin ciid baadan islaam qabanayno macna wax way marka horeba hada gacanta ula sheegay macna marka saas daradeed buu garaacay fadfiqa bil hajr dhagixi ayuu yaani fadfiqa wuu guda galay darban garaacis bil hajr uu garaac macna dhagixi marka garaacis kala daan faqala abu hurayra wuxuu yiri wallahi ilaahi baa ku dhaartay innahu amr yashani la nadabun nabar ayaa bil hajr dhagixi ku sugan buu 6 نبر أو 7 أما 7 نبر بعد أي كيان ضربا قراعست درادت أما ضربا قراعست من كذا أي نبر كاسكين في الحجر دقاح وقراعي تاسو معنا دقاح قراعستي وقراعي يا نبرك يعني يا نبر رسي مركا النبر دقيحي كيان لا يا ولي باقي كوا تاسو معنا يعني هو اسكا معجزة إلهي إلا أن دقاح هذا نظر وحكو قراع ده النبر ما يلاني زواه لكن وشي يسوي وكو قراعي ده النبر ريسي تاسو معنا طيب هل كان مركا وحكا هذا كان دنبه oo dhagixii inay nabar ku siiyaleena Abu Hurayra hadalkiisa marka muxuu noqonayaa waa mawquuf sama laakiin fi kitab al-anbiya oo inoo keeni doona xadiiska hadalka wuxuu ka dhigay inuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam taasmaana oo nabiga wuxuu sheegay dhagixii markuu Muuse garaacay inay nabar ku hareen oo nabar ku siiyaleen macna sidaas weey xagee marka laga qaadanaya maxallu shaahidku wax weeyaan oo meesha laga daliishanaya ay tahay نبي الله موسى عليه السلام مركي ودمعي إنه قبيستو مرضو دكتي سوا وإلا مرضو هدوسا نسكدين ما يوحي لما عرين مرضو دكتي مركا مرضي بو دكتي وإسقاوية قبيس بيسود ديارية إلى بنانتا ولا يقال وحيث كسا ليسانتهي مركي ليسلو أقلاوه شرعي أمديه نبهري شرعي مينوية هاي يعني علماء أصول الفقه هو أي كبضان تقريبا يعني سيده الراجحه على يدهو شرعي بو انو يahay haduusa sharciga khilaafin hadii sharciga wax khilaafsan laga helo sharci loo baaha laakiin hadii sharciga wax khilaafsan laga waayo sharciga ummadii hore sharciga inoo yahay waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu nabiyada ka soo waramay oo aad looga soo sheekay fi suurati an'am yani ulaa'ika alladina hada Allah fabihudahu muqtada nabiga sallallahu alayhi wasallam kuwaas waa kuwa ilaahay hanuuniye hanuunkooda ku dayo oo raac marka inaynu raacno yani sharaa'icdii hore wixii sharcigeenu khilaafin ayaa macnaha laga qaadan adiga mas'ala usuuliye ma taa markii la saliyo marka xadiisku daliil noqonay waxa taasi xoojinaya nabigu sallallahu alayhi wasallam nabi Muuse markuu sheegay in uu marka dhigay oo qabaystay markuu sheegay hadii sharcigeenu khilaafsan yahay nabigu qisada saa kuma daayeene uu baraarujin lahaa macna taasoo macna si xoojinaysa inuu sharci inoo yahay nagana macna ayib waxa laga qaadanaya xadiiska la leeyahay hadii loo baahdo oo qasab noqoto oo dantu kalifto awrada bini aadamka in la arko karo saas macna in la fiirin karayo mesela daaweyn oo kaleeto in loo fiirin karayo in loo fiirin karo mesela wala isqabsaday reerkii isqabiga isqabsaday oo masaa'isha ay fuqahaadu sheegaan oo ninkan baras buu leeyahay islaamti hoos buu baras ku qabaa ama isaga wuxuu yiri iyada barasle ama waxay sheegatay inuu san ninkan kadaato inni yahayo uu san macnaha waxa weey dantii iyo ujeedadii guriga loo dhistay nin gudan kara uu san ahayn arrimo noocaas oo kale si kale lagu taxqiijiyo la waayo haday dhacdo in bini aadamka awradiisa la fiirin karo yaa loo dalishanay macna waa xadiiskan waxyaalaha laga qaadan bay kamid macna ayib waxaalaad ka daruuro وعن أبي هريرة وحلق ورن عن النبي صلى الله عليه وسلم بكوري وعن أبي هريرة حديث سنة كيسي أول سنة كهرون سنة حديث كهرون وكورين باكن دنبنا أبو هريرة لك كورين يا تصمعنا
وعن أبي هريرة بالسند الأول بمعناها عن النبي صلى الله عليه وسلم سند السابق قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت أيوب يغتسل نبي أيوب بين وقت أيوب النبي أيوب يغتسل قبيسنا عريانا إسقوا قاوا أيا فخر وحكسر دعي عليه دشي سجراد أيح ما كسر دعي ومن ذهب أيح معناها الذهب أم كسر دعي إسقوا قاوا وقبيسنا فجعل وحي بالله أيوب مركع يحتفي إنه قرب صدق أو قرطه أي حداها في ثوبه مردي سينه كؤرور صواه قرطه يعني انتو عبتوبيه إنه مرة فرق غير قرطه أيوب بالله معنا فناداه وحا أضواقي أيوب ربه ربي جيبا أضواقه وحكول يا أيوب ألم أكن نيانا أهين أغنيتك متكادقي عما ترى وحا بركت أن أبركتي الذهب كفوص وضعتي متكاكافي أو كادقي وحكا غفلا كغفلا كسي سومئه محا وحن كذا يعني أرور سجيسة كبوه طوي معنا فقال وحر مركا يعني أيوب بلا اسكبت دائنا ذا السينين واد السيسي وعزتي كان كدارتي شرف كان الله كدارتي واد السيسي أو وحي قف واد البيغبي ولكن لا غنى بيغتون متشرو بي أنيقا واحد بيغتون إغو مصقنا عن بركتك بركنا وعنك بيغتون خير كاغا فرها بدن الله كمان مار بكروي معنا سكة استقعد إيد بيغبي وحيسي سيدا فبخير كاغا فرها بدن ميابا اللي سكد إن كرامة مركو كسومر وإن الله ورسوله صوما صارت معنا طيب بعد شيء اسمه كيسينا وعدي هيو نبي الله أيوب عليه السلام استقوا قاوم بورك سينا قبل سنية مركو شرع من قبلنا أيضا شرع من قبلنا ومدي نقول الشرع وليه معنا طيب إنك أنا شرع بوية واسيدة بقى أود لشنية حديثك معنا حقا لقد لشنية وحال لقد لشنية الله سبحانه وتعالى نبي الله أيوب وحوكو على أمتي أرور سيقا أرور سنية أي حال ذهب كعب كاونا أنت أكوك بيسنة يوهبي خلال أهل هيدنا صلى الله معنا أنت ما دام الله أمسي وإلهي أمسي إنه أبنانيد باكتوسي هذا أبنانيد إنه كان وإنه أبنانتا فاسمه معنا لما الحديث بمركة أود للشرعي وبخاري إنه أبنانتهاي مركة لقبيسنة إلا يسقاويه حديثي مرأة بابك وتعليقه كينه بهجنا وحوتا إنه كيراه سيدة صدق بغنسه وإنه إسقطوط إسقاريسه فحيالي الله حق أن يستحيى منه من الناس تاسوي